هي صفات الخطيب المتميز. ترى صفاتك وناكسن إلا قرب قف خطيبك وامح. صفات الخطيب المتميز مسكح هذا طلب محاكا لحقوه حياة محينا وانكرتان. أول الصفة وامحي الإخلاص. أرنت هذا هداني إخلاص أهين وإلهي سبحانه وتعالى درتي أنا كأهين وحباه يستعلين قولي يا يسكفل. ولذلك وحل الإخلاصكم وحويان دأب الصالحين ودقنك ددكم وناكسن. إخلاصكم أما قف كستاو دونيا ما أنت إنه استاغو أو ربضت إنه الله الله محن الله نهاي عدد خطيب تهاي وحلقة مارمانة أن تقف لابد سيدو كلو إنا درينتو ونفت هذا درين سيسو إنه دو يستاغتو الله أمانه صوما صح أنتم معي أكيامي إذا ما صعدتان سؤال صح معه قف خطيبك سو استاغيا وإنه يستاغو هل هو أمانه أكواد ردين مركب وران فلين وعطوا مغنيين حق أصلا قف محلو يستاغيا لله ما هبل والله خبط بوجيديا ما شاء الله ونو وناكسن ونن بلا كدعدي فصم حسو كلو نقوي taasi ma aha ilaahay subhanahu wa ta'ala darti laakiin waxa laga rabaa waxaagu inuu noqdo ilaahay darti ma kana lillahi dama wattasal wama kana lighayri illahi inqada'a wa infasal haqiiqa way wax kasto ilaahay subhanahu wa ta'ala darti loo sameeyaa waanu daa'ima waan xiriira laakiin wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala ghayrkii loo sameeyo oo ujeedadu ay tahay ismaqashiin iyo hal ay maqlo iyo hal ay amaano iyo hebel wallahi waa in aftahano bala ka dhacday waxaad ogaataa amalkaagu waa go'aya waxaaguna xiriiri maayo ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu ka dhigayaa amalkaaga hal baad lagu lisay walidaalika waxa la yiraahdaa qofku khayr iyo wanaag kama zuulo haduu yiraahdo ilaahay dartii sidoo kale hadii uu amal uu sameeyo ayo ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii marka amalka aad sameynayso ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii uu sameey khudbad baad sheedinaysaa kalmad baad sheedinaysaa arday yar baad darsi u dhigaysaa waa in ujeedadaadu iyo hadafkaagu uu noqdo maxay ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قرن سنصومه وحلما علست شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي ما كان هذا أحمد فلي هذه ملاها هذا يقول قتاري صومه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وحليه هيولي شيء كمد ذالين إن أن علاج شيء oo noqdo sidii saxda ahayd loo baahnaa oo iyaga darabo niyadeen hadii aad doonayso amalkaagu inuu noqdo amal ilaahay subhanahu wa ta'ala uu aqbalo waxaad ka warhaysaa markasta niyadaada marwaxad sameeyaa sheekh ya marwaxad المروحة ما في واي عمر بن در رضي الله عنه وعكور رمي أبيه وحكوري آبو مركا dadka hor istaagto aad wacdi iyo kalmad iyo khatabaad siiso dadku way ooyaamuul qofan adiga ahay markuu u jeedina ma ooyaan sirta ku jirta aabo waa maxay halka soo muhiim ah walaga yaabana in khadiibo oo khudbada jimcaha masaajid ka galay kalmadiisu ay ku saameysay iyo khudbadiisu laakiin waxa dhici karta nin kale khudbadiisa ama kalmadiisa aad xaadirtay wax isbedelayna kugu sameynba iyo saameyntoona waxa kamid ah iimadayna tujiyay midba laga yaabo marka ku daba tukanayso qalbiga quraanka uu akhrinayno ku taabto inuu waxa laga yaabaa inaad tukanayso in kayna dareemin hatta inaan la socon baa suurtagal ah sababtu maxay tahay leeyto sakit minna ilaahi darti bay ka tahay qalbigu ka akhrinay qofna afka way qalbiga ma gaadhin ولذلك وحو ليهي آبو
dadka adu markaad wacdi sideed waanaysid waxa weeyaan dadku way ooyaan qof kale haduu waaniyana ma ooyaan wuxuu ku yiri ya bunayya laysat an-naa'ihatu thakla mithlu naa'ihati al-mustaqbal طبعا waxay tiri jirtay arintan waqtigii jaahiliyada wuxuu ku yiri aabo gabadha buuri ooyeysa ee musiibadu ay ku dhacday amba ilmaheedii dhintay amba aabaheed dhintay iyo tala soo kireystay si ay u oydo isku mid ma aha buuri waana xaqiiqo waayo gabadha iyadu musiibo dhab ay ku dhacday musiibadaasi noocay doonto ha noqoto lamid ma aha gabadh la soo kireystay si loo soo kireysanay waqtigii jaahiliyada waxa jiri jiray markii geeri iyo musiibo ay dhacdo dumar baa jiray gabdho lacag qaata lacag baa la siinaya waa la keenaya guriga hortiisa fadhiisanayaan ooyeen oo intii la xoojinayaan marka wuxuu leeyahay qofkay musiibada ay ku dhacday iyo qofka la soo kireysay mushaqayada lacag qaatay isku si uu ooyimaayana laakiin farqi shaaqu soo weyn baa u dhaxeeya walidaalika bal raba ayuha al-khatib al-muwaffaq hadii adoonayso ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku barakeeyo amalkaaga خطابada iyo hadalkaaga iyo amalkaaga waa inay noqdaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wajigi wa illa hadii kale waxa weeyaan amalkaaga wuxuu noqonayaa mid aan intifaaciya dadkana saameyn ku yeelanaysa